barasaabka gobolka Maroodijeex Jaamac Xaaji Axmed oo telefishinka bulsho waraysi qaas ku siinayay xafiiskiisa waxa uu barasaabku ka hadlay 20 Febraayo oo maalinta bariya ku beegan isla markaasina ah maalinta xuska dhalinyarta heer qaran ee dalkani Soomaaliland oo ku beegan maalintii dhagax tuurka waxaana uu fariin u diray dhammaan dhalinyarta reer Soomaaliland gaar ahaan dhalinyarta gobolka Maroodijeex inay si ballaaran uga soo qayb qaataan maalintaasi ku beegan xuskaasi 20 Febraayo waa maalintii runtii dhalinyarada Soomaaliland oo maalin taariikhi ah oo runtii Soomaaliland taariikhdeeda kaga jirta meel weyn hadda wadarkiisa shir baan ka baxnay ururkii Soonyo wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha hawshaasi waxaan abaabulkaasan ku jiraa berito sidii maalintaas hadii Ilaahay ka dhigo waxa laga dhaqaaqay halka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha waxa la tagay halkii beerta xurriyadda dadka laga hadli doono waxa la dhigayaa taaladii loo sameeyay dhalinyaradii maalintaas ku shahiiday dhagax tuurkii runtii maalintaas waa maalin weyn waxaan soo jeedinayaa dhalinyarada reer Soomaaliland gaar ahaan gobolka Maroodijeex inay ka soo qayb galaan berito oo Khamiis ah xuska maalinta dhalinyarada Soomaaliland oo lagu qaban doono beerta xurriyadda dhanka kale waxa uu ka hadlay barasaabku udbadii madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biix Cabdi oo maalintii shalay ahayd u jeediyay xildhibaanada golaha baarlamaanka Soomaaliland waanu soo dhaweeyay khudbadaasi waxaana hadaladiisii ka mid ahaa khudbada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biix Cabdi waxay khudbad sanadeediisii labada gole waxaanu kaga hadlay waxyaabihii uu qabsoomay xukuumaddiisa dhinaca horumarka nabadgelyada qaybaha kala duwan ee arrimaha bulshada iyo waxyaabaha uu qorshaysan siyaasadda arrimaha dibadda mawduucyo badan buu madaxweynuhu kaga hadlay runtii waxaan ahayd khudbad qiimo badan oo taariikhi ah oo kaga hadlay runtii waxyaabihii xukuumadda u qabsoomay waana khudbad sanadeediisii caadiga ahayd waxaan filayaa inay bulshadu aad iyo aad ugu bogeen khudbadda madaxweynaha oo waxa kamid ahaa waxyaabo runtii ay bulshadu ayaamahan dhigta u taagaysay ay kamid siyaasadda arrimaha dibadda imaatinka farmaajo oo dadku aad isu weydiinayeen oo madaxweynuhu mowqif adag u iska taagay marka waxaan filayaa inay dadweynuhu si fiican ugu qanceen khudbadda runtii sidoo kale waxa uu barasaabku ka hadlay furidda ururada siyaasadda ee uu maalintii shalay ahayd madaxweynaha Soomaaliland uu ka hor sheegay xildhibaanada golaha baarlamaanka Soomaaliland waxaana ugu baaqay dhalinyarta reer Soomaaliland inay fursadaasi ay ka faa'iideystaan waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya runtii fursadaasi waa fursad wanaagsan marka horeba waxay ahayd in 10 sanadoodba mar la furo waxba kama hadhin waqtigii golayaashii deegaanka 2012 la doortay hadda waxay ku jiraan 8 sanadood baa gabagaba wax yar baa ka hadhay runtii waxa loo baahan yahay bulshadeena in laga wacyigeliyo dhinacyada qabyaaladda oo xisbiyadeenu aanay noqonin xisbiye qabyaaladeed waxaad arkaysaa dhalinyaro TV-da ka hadlaysa oo leh waxaanu aqoon-yahankii dalka ama sheeganaya aqoon-yahan haddana waxay ka hadlayaan ay tahay qabyaalada ilaa haddaanu reer hebelnahay marka waxa loo baahan yahay way fiican tahay inaanay cid u xidhnaanin xisbiyadu oo waxa ay had iyo jeer ku cawdaan dadkeenu xisbiyadu waa monopoly oo qaar waliba cid bay u xidhan yihiin laakiin fursadda madaxweynuhu uu siiyay waxaan oran lahaa waliba dhalinyaradu ka faa'iideysto dhalinyaradu waa xoog ugu badan ee bulshada Soomaaliland marka waxa hadii dhinaca wanaagsan loo jiheeyo waxaan isleeyahay isbedel bay muujin karaan runtii aad u qiimo badan dhalinyarada Soomaaliland fursado badan bay heshay waxbarasho heleen dalkeena maanta waxa weeyaan jaamacaduhu way fara badan yihiin waxbarasho badan bay dhalinyaradu heshay ana waqtigaan ardayda ahayn fursadaha inta ligmaanan helin marka dhalinyarada reer Soomaaliland waxa leeyahay ka faa'iideysta maanta fursadaha haysataan oo runtii waxyaabaha dhalinyarada lagu jahwareerinayo Soomaaliya oo kale oo maanta ay ognahay dhibaatada ka taagan iyo halaaga ka jira oo maalin walba qaraxa dhaca ay 100 arday ama 100 dhalinyaro ay ku dhintaan ayaa dhalinyaradeenii lagu walaahoodiyay oo laga gacan haadinaya dad iyaguba lagu ilaaliyo amisom ilaaliso mas'uuliyiina ayaa dhalinyaradii u gacan haadinayay halkana wax yaalaan laakiin waynu ognahay waxba ma yaalaan dhalinyarada Muqdisho joogta ayaa dareemaysa ciriiriga iyo dhibaatada ka jirta Soomaaliya Marcali Ducaale Umar Shabash telefishinka bulsho magaalada Hargeysa